السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبضي داود يا دمانتين بوا مركل يا ولاشين أيانو إذن له سودا وهذا إلهي وحن كرتين يا ملك السواد شوكتان من نبض قب إن تكون شوكتان واسنين يدين بريء وبرامج كني عافمات كويدين كصودا هاي مركلة ما أنت وحن ربعين إنه كهذا الذي في شيء كآدمه أو ذو بقاب كورشدها بني آدم كويس مستان فكرة ورشدها إلهي بكسوقاتين waxaan rabnaa inaan idin tuso siday muhiim inoogu yihiin qofka bini'aadamka maadaama mujtamaceenu boqolkiiba 80 iyo ka badan uu ka cabanayo caloosha maaragtay gastric iyo ay ka cabanayaan calool istaag waxaan rabaa inaynu isla yar eegno in yar siday biyuhu halkay muhiim u yihiin maxaa dhici kara halkee ayaa maaragtay halkay caawiyaan biyuhu cuntada haddii aynu ka bilowno dheefshiidku wuxuu ka kooban yahay qaybo badan waxaa ka mid ah malawadka mindhicirka weyn mindhicirka yar sidoo kale ganaca caloosha beerka oo ay ku dhagan tahay xamiitida iyaduna oo qaybta ugu muhiimsan ama qayb muhiim ka qaadata dheefshiidka hunguriga cas iyo sidoo kale labada qanjir ee ku dhagan afka hareerihiisa dhinaca hunguriga dhinacyadiisa maaragta oo soo saara candhuufta cuntada marka aynu cunno ee afka iligu burburiyo markaad carfiso ama aad aragto cuntada waxa ay dalbanayaan qanjidhadaasi afku wuxuu dalbadaa candhuuf fara badan waynaga dhereerina haddaynu cunto aynu rabno aragno candhuufta badan baa lagu qasaa ama lagu burburiyaa iligu ku burburiyaa marka cunto waxa ugu koobaad ee laga saarana waa tamarta sonkorta iyo tamarta afka lagaga saaraa kadibna carbohydrate-ka kadibna waxa cuntadii la burburiyay yaa candhuuftii iyo raashinkii la calaaliyay calyada ahaa waxaa lagu daadajiyaa hungurigu maadaama uu leeyahay qaybo isfurma iyo qabaab iskor saaran dhib kuma qabo dhumucda iyo qalaylka cuntada aad cunto yacni haddaad biyo ku cabi weyda xataa waad liqi kartaa laakiin calooshu markasta oo markaad urisay ama aad aragtay cuntada waxaa caloosha gidaarkeeda ku taxan daldaloolada gidaarka caloosha waxaa ku taxan dheecaan waxaa ku taxan qanjidho yaryar oo la yidhaahdo gastric glands waxay soo daayaan acid fara badan ayay soo daayaan oo calooshaadu way buuxsamaysaa acid baa meel walba ka imanaysa waxaa laga qiyaasaa maalintii inay 1 ilaa 2 litir oo maaragtay acid caloosheena ay soo dayso oo ay caloosheena kusoo dhacdo acidaasi caloosha kusoo dhacaysaa aad bay u kulushahay oo jidhka bini'aadamka meel kale oo xamili kartaa ma jirto bal haddii xitaa banaanka loo soo saari lahaa bay yidhaahdaan sida maaragtay hydrochloric acid oo kale haddii banaanka loo soo saari lahaa ama pepsis waxay burburin kartaa ama ay daloolin kartaa weel jandia marka aciditigaas qaarkood waxay ka shaqeeyaan inay dilaan bakteeriyada cuntada la socota qaarna waxayna ka siman yihiin inay burburiyaan cuntada muhiimadda aan ka leeyahay waxa weeye acidaasi faraha badan waa inaad ka dhaaluud garayso biyuhu shaqada koobaad ee ay ku qabanayaan waxa weeye waa inaad gas acidiskaas ama hormoonada ama dheecaanadaas lagu burburinayo cuntada ee faraha badan aadkana u kulul calooshaada inaad ka dhaaluud garayso dhaalushan waxaa la yidhahdaa inaad biyo ku darto sida cuntada haddii milixdu ku badato aad biyo ugu darno hadday sokortu shaahay nagaga badato aynu biyo ugu darno baa la rabaa inaad ka khafiifiso oo aad biyo kaga darto calooshu iyadu waxay leedahay layer ama qayb ka ilaalisa oo maaragtay ka xafida oo muddo dheer way maaragtay inkastoo iyadaba haddii muddo dheer aad biyo ku cabi weydo aciditigaasi calooshaada cimrigeeda soo dejin karo oo maaragtay ay dhaawacyo ama nabaro ama ay kasoo dhici karto haddana waxay leedahay muddo dheer layer la yidhaahdo maaragtay mucus layer oo muruq ka samaysan mucus ama waxyaaba isjiidjiida ka samaysan oo isagu xamili kara aciditiga oo caloosha ku dahaadhan videoga waynaga arkayna inta dahabiga ama huruudda yalowga laga dhigay wey wuxuu leeyahay qaybtaas laakiin maqaarka wuxuunbuu ku daboolan yahay caloosha gudaheeda hoose gidaarkaasi meel kale jidhkeenna ma laha sidaa daraaddeed ba hunguriga iyo caloosha waxaa u dhexeeya qayb la yidhahdo sphincter oo sphincterku waa albaab sida dabada bini'aadamka oo kale ah wuxuu isu furaa sida maaragtay sida markaanu saxaroonayn inaga dabadeena waxay iska furtaa marinka saxaradu kor uunbuu iska furaa soo maa marka way soo baxa saxarun baa kasoo baxday marka de xaggan waxba kama maaragtay de waxa lagu qasba mooyaane
way xidhan tahay markasta si joogta ah. sidaa daraaddeed sphincterkuna kor unbuu kasoo furmaa, hoos sida barmadnimo uga xidhan yahay inta badan, ilaa iyo ay pumpsku amaba aciditygu intay ka bataan ay maaragtay ay markaad istiraahdo cunto cun ay maaragtay waxyaaba qasabad inaad ma tagto oo kale. haddii acidku soo bato oo ay calooshu buuxdo, acidkaasoo bila dilatation oo aada u kulul, markaad cuntada liqaysa way weydaaranaysaa hawo kululi. sida kale waa la xafiday, sphincter baa ku xidhan, hawadaasna intani ay ku gubanayso. marka cuntada la burburiyo ee caloosha lagu burburiyo secretionska faraha badan, hadday tahay kubeerku soo daynaya ee bailka, hadday tahay kuganacu soo daynaya pancreaska, hadday tahay maaragtay waxay leeyihiin way badan yihiin. qanjidhada waxay soo daynayaan maaragtay intaasoo kala wada kaana. qaarba waxay u xilsaaran yihiin hydrochloric acid oo kale inay bakteeriyada caloosha cuntada la socoto disho oo kale ayay khaas u tahay, ayay la socotaa. waxaa jirta mid iyaduna borotiinka ka saarta cuntada. calaa kulli xaal way badan yihiin. cuntadii ay burburiyeen waxaa lagu daadejinayaa mindhicirka weyn, mindhicirka yar baan leeyahay cafwan, mindhicirka yar bay ka dhacdaa absorptionka ugu badan, amaba nuugista cuntada laga nuugayo nafaqaadka yaryara ee wixii cuntada de haddii fitamiinadii iyo wixii loo baahnaa nutrientkii dheefshiidka qaybtiisa ugu muhiimsani waxay ka dhacdaa mindhicirka yar. mindhicirkuna sidaa aragtaan qasqaska iyo dhuugista wuxuu u baahan yahay biyo ayuu ku dhex jiraa. biyaha ayaa maaragtay lagu dhex daadiyaa oo maaragtay xidhiidh toosa malaha iyaga iyo malaha mindhicirka yar iyo dhiigu. biyahaas ayaa u baahan iyaguna inay mar walba buuxaan. sidaynu videogeeni hore ku sheegnayna, unugaha caafimaadku, difaaca jidhku ama human white blood cellsku biyo ayay ku dhex jiraan iyaguna waa inay markasta biyaha u buuxaan. laakiin halkan absorptionkii cuntadii aad cunaysay muhiimadda qaybta ugu weyn waxaa ka qaadanaysaa inaad biyo ku filan ay cuntada la socdaan. waxaa kaloo qayb muhiima ka qaadanaysaa inay mindhicirku qoyaan leeyihiin oo aad biyo maaragta jidhkaagu meel walba qoyan tahay. marka cuntada laga saaro wixii laga saaraya ugu muhiimsanaa waxaa loo dhaadhicinaya mindhicirka weyn. mindhicirka weyn isagu wuu dheer yahay, wuxuuna ku wareegsan yahay waxa kolanka ay yidhahdaan ama bowlka, wuxuu ku wareegsan yahay mindhicirka yar. mindhicirka yar buu ku wareegsan yahay, wuuna ka weyn yahay. isagu ma laha ilkaha yaryar ee maaragtay waxma absoor gareeyo badan, laana qayb waa laga soo saaray jidhka wixii cuntada uga baahnaa inta badan. isagu wuxuu u baahan yahay laakiin inay biyo aan xad lahayn cuntada la socdaan, waayo saasuu u qabanaya waxay u tuujinaya, biyuhu ka reebaa. haddii aanay biyo ku filan la socon maaragtay ma gudbin karo. sidaa daraadeed dadka intooda badan way qalalan tahay cuntada halkaa gaadhaysaa, way qalalan tahay qashinka halkaa gaadhaya. sidaas aanu malawadkoodu aanu mindhicirkooda weyni u gudbin karin oo maaragtay deetana ilaa malawadka istaxayaa, deetana ha dhowto marinka cuntadii kale uu cunay baa meel loo marto ma jirto, waxay joogaysaa mindhicirka yar. mindhicirka yarna waa halkii dheefshiidku ka dhacayay, absorptionku ka dhacayay, halkaasi way ku xumaanaysaa. mashaakilkaas oo dhanna waxaa kow ka biyo la-aan. markaasa waxaad ka qaadaysaa mindhicirka weyn isaguna wuxuu leeyahay oo kale, wuxuu leeyahay in ka badan 100 bilyan, milyan maahaya 100 bilyan oo bakteeriyaal. difaaca jidhkay meesha u joogaan, hawlo kala duwan bay jidhka u hayaan. laakiin haddii cuntadu halkaa ay ku hakato oo malawadkaas maaragtay bowel movement waxaa la yidhahdaa dhici waayo, hadduu dhaqdhaqaaqi waayo uu saxar iska saari waayo wasakda, waxay samayn karaan iyaguna khatar caafimaad bay kugu keeni karaan. cabitaanka biyuhu wuxuu ku xidhan yahay caafimaadkaaga oo dhan. marka laysu wada geeyo cabitaanka biyuhu ku xidhan yahay. aad iyo aad baad umahadsantihiin. thank you very much. please ii subscribe gareeya, dadka la wadaaga, commentkana iigu soo maaragtay qora waxyaabaha aad xiisaynaysaan inaynu ka hadalo. thank you very much.